fiidnimadii hore ee habeenkii Khamiista oo ay taariikhdu ku beegneyd 2 saac iyo qadar 30 daqiiqo ah koox inqimaasiyiin ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duulaan barakaysan ku qaaday hotelka Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho kaas oo kamid ah hoteelada ugu caansan ee ay degan yihiin madaxda iyo saraakiisha kooxda ridada Soomaaliya. weerarkan inqimaasiga ah waxaa ka horeeyay amaliyad istishaadi ah oo uu fuliyay mujaahid ka xinayay gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa kaas oo beegsaday albaabka laga galo hotelka. qaraxan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa burburiyay kala bar dhismihii hotelka iyadoo sidoo kalena ay halkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in badan oo kamid ah dadkii ku sugnaa. qaraxa kadib ciidamada infantryga ee mujaahidiinta ayaa u daatay hotelka kuwaas oo laayay maleeshiyaadkii ilaalada ahaa una sii gudbay dabaqyada hotelka. dagaal kooban kadib waxa inqimaasiyiinta u suura gashay in ay si buuxda ula wareegaan dhismaha halkaasna ka sameeyaan howlgal toogasho. mid kamid ah inqimaasiyiinta ayaa ka waramaya saacadihii ugu horeeyay ee weerarka iyo sida ay ku galeen dhismaha. muslimiinta waxa ugu bashaareynaa inaa oo dhisa gaalo ku jirtay oo anagana waxba nama gaarin oo hotelkina aan ku jirno hadda ilaa hadda gacantan ku hayno waxna nagama meel oo joogaan ama soo daceeyaan insha Allah taala hanoo soo daceeyaan intii muslimiinta oo dunida gaalada ka hor inta aysan qabsan hotelka waxay inqimaasiyiintu khaarijiyeen qaar kamid ah ilaaladii dhismaha oo isku dayay in ay isurtaag ku sameeyaan weerarka mujaahidiinta. saraakiisha iyo madaxda murtadiinta ee joogtay hotelka ayaa noqday kuwa ka baxsaday ilinka dambe ee dhismaha iyo kuwa isku soo xiray qolalka iyo suuliyada. waxaana saacadihii ugu horeeyay ee weerarka dhismaha laga soo bixiyay xubno qaba dhaawacyo kala duwan oo ay ku jiraan saraakiil iyo xubno ka tirsan dawaaqida oo uu ku jiray xildhibaan lagu magacaabo Sooyaal iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. kooxda ridada ayaa afaafka hore ee hotelka ku soo daabushay boqolaal askari oo gurmad ah si ay u galaan dhismaha una soo afjaraan weerarka balse Allah fadligii in ka badan 7 mar ayay ku jabeen isku dayadii ay ku doonayeen in ay ku galaan dhismaha sida ay noo xaqiijiyeen inqimaasiyiinta. waxaana Allah fadligii cadawga lagu khasbay in ay dib u soo noqon waayaan ilaa uu waagu ka bariyay. waa kan mid kamid ah inqimaasiyiinta oo xilli saqdhaha jooga isla markaana ka warbixinaya dagaalka halkaas ka dhacay kuna roondaynaya goobihii ay ka carareen murtadiinta isagoo ka sheekaynaya qasaaraha ba'an ee dusha loo saariyay maleeshiyaadka murtadiinta. iyo harantooda si umareynayso waajaabeysa ku dhaadar meeshi lagu dhamaayo waa ka arrin waay dhiig badan inuu wax badan inay ku dhaawameen umareyna meel meeshana horteen waa ka baxeen wayna waxba ka soo gaarnay wax badanay meeshi maarka jaranjarada dhiig waa inay gaalo ku badan ninka hadda imaado maarka gaalo hadda dadkoo qasan oo aqla la'aan hadda meesha soo istaago waa garana gaalo in meesha ku baabad waa dareemaya meesha ka digaalina waa una qofsan una hadda ku jira una gacanta ku haysana mar hore ka aragn waxa wadan agaaraha ma joogaan waa aragna mar hore ka aragna meesha hotelka ma joogaan meelan hadda waa kama shan garan una kaligaan doodin ilaahay nala jiray meesha una joogna ilaahay nala jiray koodi gaalana waa jartay taqtigoodi iyo daawaad iyo awaadkiis waa shangara daawada shangarkood waa mamakleen hadda waa habsadeen meel ay aradan. markii ay ku jabeen malxamadii habeenimo ayay murtadiintu go'aansadeen in ay soo rogaal celiyaan marka uu waagu baryo laakiin waxa qabsaday halaag iyo khasaare ka daran midkii hore waxaana mar kale ay ku jabeen weerar xoogan oo ay subaxii soo qaadeen sida uu tibaaxayo mid kamid ah inqimaasiyiinta. weerarka saada soo gaadeen waa jabeen hadda kana ليه صار ليه كان سؤالي ليه صار هنا dagaal xoogan oo qaatay muddo saacado ah ayaa inqimaasiyiinta iyo cadawga ku dhexmaray dhismaha waxaana mujaahidiinta u suura gashay Allah fadligii in ay mar kale halkaas ku dhiciseeyaan ugu yaraan 5 weerar oo uu cadawgu soo qaaday. qaar kamid ah weeraradaas waxay walaaluhu ku furteen qaniimo isugu jirta hub iyo rasaas waxaana mar qura isqabsatay takbiirta mujaahidiinta markii ay ka guuleysteen cadawgooda Allahna uu ku arsaaqay saanad ciidan oo ay u sii kaalmaysteen duulaankooda. حد بانجراف حد تاعنا كومون حلبة كوم تبع الكوكاين بوشلان وجرينا حياة وحسيت سد أقولي حسيت كفر مثلاً كانوا بيشارين بانجراف تي كانوا يقولوا بيجي إن شاء الله أول ما عند مثلا بقول ترى حسيت كأني سد أي وقت أردن كره بس كسور جدا الله أكبر
الله أكبر. halyeeyada inqimaasiyiintu waxay ahaayeen kuwa sugan oo la sabartamayay cadowga Allah isla markaana carabkooda uu ka qoynaa adkaarta iyo xuska Allah markii ay xabadu qabowday maleeshiyaadkuna kala firxadeen ayaa mid kamid ah walaalaha wuxuu sharaxaad ka bixinayaa malxamadii dhacday barqadii ilaa duhuradii ee dhexmartay iyaga iyo murtadiinta saddex qori oo aanay dawladda ku xiran saddexda waa ka qaadan iyo saddex boosh ilaahay ma saddex qori waa ka qaadanay iyo saddex boosh rasaas waa dhirin markii batoon xabuwata oo rasaas حتى وقصو تنيني وقت جارمين وقتو وقصو جوني وقصو جوني لو كلام جدال خد عنده هنا هنا مدنا ورنيا وقالوا عن جتنيا وكبشارة توز ولا لا نحن مسلمين كانوا في قالوا جت من جراسي وكوين أو أنا توتان من رؤاسي وقوانتين ما كان قصين ولا لو هيجرين إلا ولا لو هيجرين إلا توريا ولا لو هيجرين كلها maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu soo daadguriyay afafka hore ee dhismaha hotel Maka al-Mukarrama ayaa ah kuwa isugu jiray ciidamada booliiska militariga iyo maleeshiyaadka gaarka ah ee loo yaqaan bankrafta ila wareediyo ayaa noo sheegay in maleeshiyaad lagu diyaarinayay Balidogle oo la doonayay inay weeraro habeen dheelmad ah ku qaadaan wilaayadka Islaamiga lagu khasbanaaday in dib loogu soo celiyo magaalada Muqdisho si ay uga qayb qaataan howlgalka loo taagwaayay ee ka soconaya magaalada Muqdisho laakiin waxa qorneed oo uu Allah qadaray in qaar kamid ah maleeshiyaadkaas ay ku qurbaxaan goobta una Allah ku cadaabo gacmaha mujaahidiinta inqimaasiyiinta ah walaal inqimaasi ah ayaa isagoo dul taagan baqtiga bankrafta fariin adag u diray maleeshiyaadkaasi kaas oo u sheegay in ay ku caanbixeen kaliya argagaxgelinta dadka beeraleyda ah ee ku nool tulooyinka balse aysan ahayn rag dagaal oo ku sugnaan kara fagaaraha la isku hayo insha Allah ta'ala dadka muslimiinta ma yaraynaba jiraan degaasan iyo dhawaasan insha Allah ta'ala wala ay sameeyay dadka muslimiinta argagaxaysan kariiri jirtaan insha Allah uuneen ma yaray hatta surin hooliti ma yaray maadle orahan degaas hatta ma yaray megasis dhanba waxaan bambay megasis dhanba meelankii soo banaanka ambay hatta ma yaray una fadhiin asiga koone wala ay isku dhow qortaan isku dhow maad ma yaray dirba ka jeedo ii laama gooyo ii muslim ku jeedo ii banaaneed abada ku ruumaysado dadka muslimiinta ma yaray horbadan ma yaray argagaxgelin insha Allah ta'ala isina hatta ma yaray lisana dansi wala inda dansi insha Allah ta'ala lisana dansi aw rubi wa kunoyin kuman hogaanka kooxda ridada Soomaaliya ma jirin wax war ah oo ka soo baxay intii uu howlgalku socday afkii ayaa juuqda gabay balse ganinkii dambe ee shalay xilli duulaanku uu galay saacadiisii 18 ayay kaamirooyinka soo hor istaajiyeen Murtad Daahir Maxamuud Geele kaas oo halkii uu ka warbixin lahaa waxa socda iyo xaaladda amni ee magaalada isku mashquuliyay in uu difaaco xukuumaddiisa kana jawaabo guuxa iyo maadeysiga kaga imaanayay baraha bulshada iyo siyaasiyiinta mucaaradka baraha bulshada marar badan waxaan ku arkaa iyadoo lagu eedeynayo dawladda Soomaaliya ee dhacdooyinka noocan markay dhacaan waxaan jeclaan lahaa dawladda Soomaaliya waxyaabaha ku howlantaa waa fara badan yihiin mas'uuliyadeenu waxay ahayd intaanay arrintaan u dhicin inaan ciidan badan ku fidinay dalka afartiisa gees magaalada Muqdisho maalin kasta ciidamo aan soo tababarnay iyo tiro cusub ayaan dhignaa hadafka aan kaga leenahay ma ahan inaan haday meel galaan ugu celin laakiin waa hadafka hortag ah saacado kadib markii uu howlgalku soo gabagaboobayna waxa warbaahinada ka soo hormuuqday ra'iisul wasaaraha kooxda ridada Murtad Khayrlaawe kaas oo dadka reer Muqdisho ugu goodiyay hanjabaadii uu 18 sano ka hor Bush ugu goodiyay dadka muslimiinta qof walbo Soomaaliyeed waxa muhiim ah inaad ogaato dhexdhexaad kama ahaan kartid dagaalka dawladda iyo shacabka ay ku jiraan either you are with us or you are with the terrorists howlgalkii barakaysnaa ee ay mujaahidiintu ku qaadeen hotelka Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho ayaa mar kale banaanka soo dhigay in aysan kooxda ridada awood u lahayn kuna dhicin in ay hor istaagto duulaanada geesiyaasha tawxiidka ee ay ku beegsanayaan xarumaha muhiimka ah ee magaalada Muqdisho